kulamada heerka gruubyada tartanka Champions League ayaa soo gabagaboobaya caawa ilaa habeen dambe xilli kooxda Real Madrid ay raadinayso guusheedii ugu horeysay ee Champions League xilli ciyaareedkan marka ay Inter Milan ku soo dhaweynayaan garoonka Alfredo Di Stéfano caawa kulan ka tirsan gruupka B. Los Blancos ayaa kaliya hal dhibic ka heshay labadii kulan ee ay la ciyaartay kooxaha Shakhtar Donetsk iyo waliba Borussia Mönchengladbach halka Inter Milan ay barbaro gashay labadii kulan ay ciyaartay balse kulanka caawa ay dadaal ay ku doonayso sida ay u qabsato kaalinta saddexaad la galaysa Real Madrid. Weeraryahanka kooxda Inter Milan Romelu Lukaku ayaa shaki la gelinayaa inuu dheeli doono kulanka Champions League ay kooxdiisa la leedahay Real Madrid sabab la xiriira dhaawac dhanka bowdada ah. Xidiga qaranka Belgiumka weerarka uga ciyaaro haatan jira da'da 27 sano ayaa kulamo badan oo uu ciyaaray kooxda reer Talyaani ee Inter xilli ciyaareedkan u dhaliyay goolal badan. Inter ayaa ku jirta kaalinta saddexaad ee gruupka B ee tartankan iyagoo leh 2 dhibcood 2 kulan oo ay ciyaareen. Lukaku ayaa mid ka mid ah dhibcaha kooxdiisa u sahlay kadib 2 gool oo uu dhaliyay kulankii barbaraha ee ay 2-2 la galeen Borussia Mönchengladbach. Lukaku ayaa dhaliyay 7 gool 6 kulan oo ka tirsanaa tartankii xilli ciyaareedkii hore idlaaday iyadoona kooxda Serie A ka xamaalatay tartankaasi xilli ciyaareedkii hore gaartay finalka oo ay ku soo baxday kaalinta labaad kadib markii kooxda Sevilla ay koobka Europa League kaga guuleysatay. Alexis Sanchez ayaa ku soo laabtay tababarka kooxda Milan kadib markii uu kursiga kaydka fadhiyay 3 kulan ee la soo dhaafay inkastoo tababaraha Inter Antonio Conte uu sheegay inaysan u badnayn in weeraryahanka reer Chile uu ku soo bilaaban doono kulanka Madrid uu la leeyahay. daafaca Real Madrid ee lagu magacaabo Ede Militao ayaa laga helay faafaha daran ee corona waxaana uu seegi doonaa kulanka caawa ka dhacaya garoonka Di Stéfano. wiilka reer Brazil oo 22 sano jir ayaa waxa uu mari doonaa karantiil muddada cayiman ee markaasi si shakhsi ah uu mari doono sida laga helayo xoga ka imanaya gudaha dalka Spain oo ay ka dhisan tahay kooxda Real ayaa sheegaya in xidiga dhowr ay ka maqnaan doonaan kuwa dhaawacyo kala duwan qaba waxaana kamid ah xidigahaasi Nacho Dani Carvajal iyo kubad sameeyaha da'da yar ee Martin Odegaard. Real ayaa ku jirta kala sareynta horyaalka La Ligaha dalka Spain kaalinta labaad oo laga badiyay kaliya hal kulan laakiin waxay ku dhibaatoonaysaa inay qaab ciyaareed fiican ka heshay tartamada Yurub iyadoo hal kulan ka heshay hal dhibic. Los Blancos ayaa u baahnayd 2 gool oo soo daahay si ay u badbaadiso barbardhac 2-2 ah oo ay la gashay kooxda Borussia Mönchengladbach waxaana kooxda ay noqonaysaa mid ugu hooseysa gruupka B xilligan. labadan kooxood ayaa hore ugu kulmay tartankan 15 jeer 7 jeer waxa badisay kooxda Inter. Real 6 ayay badisay 2 kamid ahna waxa ay galeen barbaro halka goolasha la iska dhaliyay wadartooda ay gaarayaan labadan kooxood intii ay kulmayeen 39 gool 19 waxa dhalisay kooxda Inter Milan halka kooxda Real ay dhalisay 20 gool. kulanka caawa ayaa noqon doona koodii 16aad xilli la filayo mid kamid ah labadan kooxood ay guul gaarto ama barbaro uu ku idlaado halka goolashana ay suuragal tahay in 39 la dhaafiyo oo goolal kale la iska dhaliyo.